xarunta qasriga madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayay 61 guuradii ka soo wareegtay 26 Juun ee sanadka 1960 markii Jamhuuriyadda Somaliland xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. Munaasabadan 61 guuradii ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Somaliland xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, shirguddoonka golayaasha guurtida wakiilada iyo guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed, hoggaanka saddexda xisbi qaran ee kulmiye waddan iyo Ucud, safiirada dalalka Imaaraadka Carabta, Itoobiya iyo Jabuuti u fadhiya Somaliland, wufuud caalami oo ka kala socota dalalka Kenya, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, diblomaasiyiin iyo safiiro kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano, agaasimayaal ka tirsan xukuumadda iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadani. Guddoomiyaha shirguddoonka golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyadana ilaashano, gacmaha isqabsano, higsiga aynu gaari doono inaynu dowlad mustaqbala noqono. waxa weeye ilaa 2005kii dhowr dowladood oo aanu tagnay xitaa state departmentka qolo waliba waxay tidaahaa waad istaahishaan in laydin ictiraafo, laakiin noqon mayno qolada ugu horeysa, waxaanu noqonaynaa qolada labaad. ilaa hadda waxaynu raadinaynaa qolada koowaad ciddii noqon lahayd. marka waxaan aada ugu dardaarmaya waxa weeye waxaa la rabaa in layna niyad jabiyo, ma niyad jabano. waxa weeye waxayna ka maqani ma jiraan, dad yar baynu nahay, waa isku tashananaa, innagaa isku tashananaa, dhaqaalahaynaynu kobcinaynaa, shaqo abuur baynu samaynaynaa. waynu 61 jirsanay berigii hore waynagii la carareen la degdegnay 4 casho ka bacdi xamar ku tuuray maynaa mahadinne dhaawac iyo geeri iyo dhimashay naga soo gaadhay. halgan dambe oo dheer baynu u galnay, mar labaad baynu la soo noqonnay. waraana dee maantaan ku adkaan aan xejisano, cadow badanna waynu leenahay oo ugu horeeyaan qoladaa aynu walaalaha nahay ee aanu nidhi waryaadha isma qaadi karree aynu deris wanaagsan u nahaana iyo laba dal baa cadowgeenna maanta ugu weyn. waryaadha qoladaasayna annagu cadaawad idiinma qabno, dhibaatana idinlama rabno, laakiin war wallahi inaanay Somaliland soo noqon mayso. aynu walaalowno, waana awguuriyeeya oo nahambalyeeya oo noo kaalaya, waynu soo dhawaynaynaa. aynu isa saamaxna wixii hore ina kala gaadhay. xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare dalka Kenya, isaga iyo wafdi ballaaran oo dalkiisa ka socda ku sugnaa munaasabadani ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland President, I and other members of the Kenya delegation are extremely elated to be in Somaliland to witness and celebrate with you, the people of Somaliland, two momentous occasions this week. Your Excellency, the first one is the inauguration of the first phase of the expansion
of the Berbera port and the launch of the second phase. We were there yesterday. In fact, we were extremely encouraged. That was a monumental infrastructural feat for the Somaliland and our own of Africa region as a whole. Your Excellency, we share your happiness and the pride in this milestone achievement, which will boost regional trade and investments and our overall goal of regional economic integration and shared development and prosperity. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa khudbad dhinacyad badan taabanaysa ka jeediyey madasha. farxad igu tahay caawa inaynu ka soo qayb galno innagoo nabada xasiloon horumar samaynay roobku inoo oo barwaaqo ilaahay ina siiyey cudurka COVID-19 adduunka weerariyay ilaahay inoo khafiifiyey nimcada badan ee bayna siiyey inagoo ku mahadnaqayna inaynu caawa u dabaaldegayno 61 sannadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeena qaadanay. ku raagi maayo taariikhda aad baa loo qoray oo kutubta qortay oo waa laga dhergsan yahay taariikhda hore ee Somaliland. si kooban markaanu idhaahdo qarnimada markaynu qaadanay sidii uu sheegay imka baasha Maxamed Faarax qaybtii horeba waa la isku diiday. shan Soomaaliyeed baa loo socday shantii oo la doona mooyee labadii isu tagay ayaa dawladdii Somaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay qayba halka qardoofadii ka dhacday iyo khilaafkii ka dhacay 61 inqilaabka waatii halkan laga dhigay inkastoo uu suurto gelin intii ka dambeysayna qaxar iyo colaad iyo buuq baynu ahayd shan Soomaaliyeed hal la doona waa la waayay waayo sharciyada adduunkan ku shaqeeyay inaga xooga waaweyn ayaa diidanaa inaguna maynaan lahayn aqoon dheer oo siyaasadeed saylka habka adduunka ragga xooga leh ugu taliyo marka maynaan ku guuleysan in shantiisu yimaadaan maanta waxaynu gaadhnay guul caalamka oo dhan uma jirto oo dimuqraadiyadda oo siyaasiya oo dhammaanteen guusha aynu wada leenahay oo adduunka oo dhan qadarin bari iyo galbeed inoogu hayo doorashadii aynu galnay walaalayaal dhib kasta ha naga soo marto xisbiyadu waan isku qabsan in badan baa lagu murmaayay in badan baan dawladda ka riixin haddaan xukuumadda nahay in badan baan lagu qoriyay ilaahay mahadi waanu ka heshiinay waan uga baahday xisbiyada mucaaradka daal dheer ka bacdi aanu ka heshiinay waxa mahadda labaad siile shacbiga naga qaatay waan aynu nabad ku conayno warkii soo baxaaba waa keeni iyo xisbiyadu iyo xukuumad madaxweynuhu arrinta dhaxan ka noqono dhaxda aynu ka noqonay iyo shicibka waaladii qaatay ayaynu ku guuleysanay